dowladaha Afrika ayaa walaac ka muujiyay colaadda sii kordhaysa ee bariga dhexe iyagoo ka digaya khataraha amniga iyo mid dhaqaale ee imaan karta kuwaas oo carqaladeyn doona ganacsiga. Kenya ayaa sheegtay in weeraradu ay si toos ah u saameyn karaan alaabaha u dhoofiso bariga dhexe oo ugu horeeyaan shaaha, qaxwada, ubaxa, hilibka iyo khudaarta, kuwaas oo si weyn ugu tiirsan suuqyada bariga dhexe. Mas'uuliyiintu waxay sheegeen in dowladdu ay la tashanayso daneeyayaasha oo ay sahminayso wadooyin iyo suuqyo kale. Sidoo kale wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Tanzania ayaa sidoo kale sheegtay inay si dhow ula socoto horumarka iyadoo rajeynaysa inay sii wadi doonto xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee ay wadamada la leedahay. isla markaana waxay muwaadiniinta Tanzania u dhashay ku sugan meelaha ay dhibaatadu saameysay fartay inay feejignaadaan. labada dowladood waxay ku baaqeen isxakameyn iyo xal nabadeed in la raadiyo. Khalkhal jira bariga dhexe wuxuu saameyn karaa socodka maraakiibta iyo ganacsiga, taas oo saameyn ku yeelan karta dhaqaalaha labada wadan. Dhanka kale, dowladda Masar ayaa ku tilmaamtay korarka dagaalka mid khatar ah, waxayna ku boorisay in la dhowro diblomaasiyadda. Goor hore oo maanta, Midowga Afrika waxa uu muujiyay walaaca uu ka qabo khilaafka, isagoo ku booriyay dhammaan dhinacyadu inay dejiyaan xiisada oo ay u hoggaamsamaan axdiga qaramada midoobay. Midowga Afrika waxa uu ka digay in sii socoshada colaadaha ay yeelan karto saameyn xun oo ku timaada dhaqaalaha Afrika, gaar ahaan dhanka tamarta iyo amniga iyo cuntada.